السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي soo dhawaada meel walba aad joogtiin saaxiibada nagu xiran mar kale waxaan joogaa Madiino gaar ahaan degmada Dharkeeley ee xaafadda Kaabo Goday marka la soo dhaafo dhinaca dhagax Turkiga dadka yaqaan ama dhinaca saddexda qurac waxaan u sheegaa dadka reer Madiino ama dadka xamar degan oo Madiino ka saayaan asxaabe waxaan hayaa ruwac boos ma maqasheen waa ruwac oo boos ande ruwac waaye waa dhul ruwac oo cabirkiisu yahay 20 bar 20 afarta koono oo 20 isku weeray waaye waxaan joognaa dhinaca saddexda qurac ande xaafadda Tiitiinley sida u jeediin xaafadan waaye waxa waaye meesha MSheedka agteed waaye meeshaan waa Madiino magaalada xamar waaye degmada Dharkeeley guriyana u jeediin oo dhisan isagan bacweynaha cadkee ruwac waaye nus boos oo laba jidla waaye marka nuska kale oo midkaan kale jiingada dhisan laba dhaxdood ku yaala marka ruwac waaye wuxuu sugunta ka yahay jayga oo ka imaanayo dhagax Turkiga meesha la dhaayo oo suuq boocle wadada ku aadan tooskeeda waaye meeshaana hadda joogo waaye wadadan waxay aadaa ilaa suuq boocle tagtaa anaga marka xoogaa waas ka soo lugeena jimcay ahayd baawuri waxaas way yaraay marka lugaan ku imaanay marka muuqaalku nagu dheeraa laakiin ilaa wax u jirtaa suuq bool 4 kiiloomitir ilaa intaas u jirtaa waana xaafadda Tiitiinley meesha Kaabo Goday la iska dhaa dhulka laakiin xaafaddu waa kala magac weyn tahay marka wadadaas markaa ka soo baxdid oo hadda kaamirada ku qabanayay luuqaana oo soo leexinay wadada jayga markaa oo kaamirada ku qabanay arkaysiin luuqaana oo soo leexinay markaa luuqa oo soo leexatid waa soo soconay nusku koowaad mee nuska labaad waa marka ruwac ay kala jaran yihiin marka isaga ruwacan waxa lagu rabaa 8 kun lagu rabaa soo dhawaada wuxuu leeyahay dukumiinti subarlooga iyo rasiiduu leeyahay loo taay Saadiya wareejisay waa dhul la yaqaan oo nadiif ah waxa waaye 8 kun lagu rabaa asxaabta soo dhawaada ruwacan jaanis waaye kan waxa waaye MSheedka xaafadda ku yaalo waaye marka MSheedkaas waaye asa u jeedin MSheedka midkaas waaye marka ruwac waaye ruwac kalena kan waaye oo guriga ka dhisan marka waxa waaye 8 kun lagu rabaa asxaabti soo dhawaada meel walba aad joogtiin wax alaal wixii faahfaahin u baahantiin haddii aad rabtiin Madiino dhul badan ka laakiin xoogo qaali waa laakiin xaafadan waxa waaye dhinaca dhagax Turkiga marka laga soo leexdo oo xaafadan Tiitiinley la imaado meesha waa meelaha zoomka soo dhaay xaafadda waxa waaye oo dhagax Turkiga ilaa dhinacan kale waaye oo Ceeldhinaano waaye dhinaca zoom soo dhaawaa Ceeldhinaano waxaan ka wadaa macnaha Ceeldhinaano waxa la reer Madiina ka saayam reer Kaabo Goday ka saay hadii muuqaalka daawanaan ruwacana labadan guri waaye labada ruwac ku dhac jira kana ruwac waa dhisan kaasan ruwac dhisan waaye marka ruwacan waaye waa 10 bar 10 waaye marka waa ruwac markuu 10 bar 10 yahay waa dhul nadiif ah waxa ka soo bixay 3 qol 2 musqul hadii loo dhisay sar la dilo dhisay waa sar aan loo dhisay oo VIP loo dhisay hadii jingal laga dhisay 4 qol waa kaaga soo bixay marka waa ka asxaabta soo dhawaada ruwaca 8 kun lagu rabaa soo wuxuu leeyahay subarlooga iyo rasiid ande rasiid iyo subarlooga leeyahay jaygan waaye mid ka taagana bacaad oo noqday cara zaad daadi because roowa daa ilaa laamiga dhinaca xamarba bacaadske marka meeshaan waa meesha wadadan tooskeed waaye wadadan la ku soo soconay waa leexinay bis midigtaada oo leexinay ruwac koowaad ma kalna waad waaye marka ku tusaabil meesha laga galaa ku tusaasaa marka soo socotid meesha algaroog mu jeedaa meesha leexinay midigtaada marka saxaabta soo dhawaada meel walba joogtiin ruwacan jaanis waaye 8 kun lagu rabaa wixii kale oo faahfaahin ama wal hadal insha Allah inta kale soo xariira soo dhawaada Madiino waaye xamar waaye waxaan leeyahay asxaabtu wixii kale saase nabadgelyo saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtiin saaxiibada nagu xiran mar kale waxaan joogaa Madiino gaar ahaan degmada Dharkeeley ee xaafadda Kaabo Goday marka la soo dhaafo dhinaca dhagax Turkiga dadka yaqaan ama dhinaca saddexda qurac waxaan u sheegaa dadka reer Madiino ama dadka xamar degan oo Madiino ka saayaan asxaabe waxaan hayaa ruwac boos ma maqasheen waa ruwac oo boos ande ruwac waaye waa dhul ruwac oo cabirkiisu yahay 20 bar 20 afarta koono oo 20 isku weeray waaye waxaan joognaa dhinaca saddexda qurac ande xaafadda Tiitiinley sida u jeediin xaafadan waaye waxa waaye meesha MSheedka agteed waaye meeshaan waa Madiino magaalada xamar waaye degmada Dharkeeley
guryahan aan ujeedin oo dhisan isagana bacweynaha cadkee ruwac waaye nus boos oo laba jidlo waaye marka nuska kale oo midkaan kale jiingada dhisan laba dhaxdooda ku yaalaa marka ruwac waaye wuxuu sugunto ka yahay jaayga oo ka imaanayo dhagax turkiga meesha la dhahayo oo suuq boocle wadada ku aadan tooskeeda waaye meeshaan aan hadda joogo waaye wadadan waxay aadaa ilaa suuq boocle tagtaa annaga marka xoogaa waa iska soo lugeena jimcay ahayd baawuri waxaas way yaraayeen marka lugaan ku imaanay marka muuqaalkaan ugu dheerlay laakiin ilaa waxay u jirtaa suuq boocle 4 kilomitir ilaa intaasay u jirtaa waana xaafadda tiitiinley meesha kaawagodaya kaawagodale la iska dhaha dhulka laakiin xaafadda waa kala magac weyn tahay marka waddadaas markaa ka soo baxdid oo hadda kaamirada ku qabanayay luuqaana u soo leexinay waddada jaayga marka hadda oo kaamirada ku qabanay arkaysiin luuqaana u soo leexinay markaa luuqa u soo leexatid waa soo soconay nuska koowaad meeye nuska labaad waa marka ruwac ay kala jaran yihiin marka isaga ruwacan waxaa lagu rabaa 8,000 lagu rabaa soo dhawaada wuxuu leeyahay dukumiinti subarlooga iyo rasiiduu leeyahay lootaay sacdiya wareejisay waa dhul la yaqaan oo nadiif ah waaye waxa waaye 8,000 lagu rabaa asxaabta soo dhawaada ruwacan jaanis waaye kan waxa waaye MCA-ka xaafadda ku yaalo waaye marka MCA-kaas waaye asa u jeedin MCA-ka midkaas waaye marka ruwac waaye ruwac kalena kan waaye oo guriga ka dhisan marka waxa waaye 8,000 lagu rabaa asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtiin wax alaal wixii faahfaahin u baahantiin haddii aad rabtiin madiin dhul badan aan ka laakiin xoogo qaali waa laakiin xaafadan waxa waaye dhinaca dhagax turkiga marka laga soo leexdo oo xaafadan tiintiinle la imaado meesha waa meelaha zoomka soo dhahay xaafadda waxa waaye oo dhagax turkiga ilaa dhinacaan kale waaye oo ceel dhinaano waaye dhinaca zoomka soo dhahay waa ceel dhinaano waxaan ka wadaa macnaha ceel dhinaano waxaa la reer madiina ka saayam reer kaawagoday ka saay haddii muuqaalkaan daawanaan ruwacana labadan guri waaye labada ruwac ku dhac jira kana ruwac waa dhisan kaasna ruwac dhisan waaye marka ruwacan waaye waa 10 waaye marka waa ruwac markuu 10 yahay waa dhul nadiif ah waxaa kasoo bixay 3 qol 2 musqul haddii loo dhisaa sar haddii loo dhisaa waa sar ahaan loo dhisaa oo VIP loo dhisaa haddii jingad laga dhisaan 4 qol waa kaaga soo bixiyay marka waa ka asxaabta soo dhawaada ruwacan 8,000 lagu rabaa wuxuu leeyahay subarlooga iyo rasiid ande rasiid iyo subarlooga leeyahay jaaygan waaye midka taagana bacaado noqday cara zaad daaday because rooba daa ilaa laamiga dhinaca marba bacaadskay marka meeshaan waa meesha wadadan tooskeed waaye wadadan leey ku soo soconay waa leexanay bis midigtaada u leexanay ruwac koowaad ma kalna waad waaye marka ku tusaabil meesha laga galaa ku tusaasaa marka soo socotid meesha algaroog mu jeedaa meesha leexanay midigtaada marka saxaabta soo dhawaada meel walba joogtiin ruwacan jaanis waaye 8,000 lagu rabaa wixii kale oo faahfaahin ama wal hadal insha Allah inta kale soo xariira soo dhawaada madiina waaye xamar waaye waxaan leeyahay asxaabtu wixii kale saase nabadgelyo saaxiib